waxaan rabaa inaan muxuu ahaa monitoring group horta taariif bal monitoring group ay maxay tahay inaan idin sheegan rabaa maanta maxay ku samaysantay maxaa lagu sameeyay maxaa ujeedadeedu tahay ahdaafteedu waa maxay horta marka ugu horeysa cadowgaaga waa inaad fahamtaa kor baad ka taqaaniina hoos baan idinku dhigayaa monitoring group waxaa la sameeyay markii magaalada muqdisho ciidamada ajnabiga ay qabsadeen waxaa loo sameeyay inay difaacaan dadka Soomaaliyeed oo la leynayo dhiigiisa inay qariyaan ummadda Soomaaliyeed oo guryaheeda la burburinayo dhiigeeda xoolaheeda inay qariyaan ujeedadeedu taas ay tahay waxaa sameeyay golaha ammaanka toos ayaga ayay u siiyaan warbixinta waxa ujeedadoodu tahay qof kasta Soomaaliya oo dhaqaaqaya oo wadaninimo ku jirto oo ummadda Soomaaliyeed u shaqeeyo ku jirto oo dhiig ku jiro oo midayn ummadda Soomaaliyeed ku jirto inay taarget gareeyaan inay liishaan ka saaraan yiraahdaan kaasi waa tu kaasi waa argagixiso kaasi waxbuu xaday qof ay dhaafayaan male laga bilaabo madaxweyne ilaa qof dadka u hooseeya maanta waxay maraysaa ganacsatada yadii horena waa yiraahdeen waad ogtihiin muxuu ahaa Sheekh Ahmed inay yiraahdeen muxuu ahaayeeto waa argagixisay inay yiraahdeen waa la socotaa Sheekh Ahmed Nuur kuwa badan waa yiraahdeen aniga 1900 laga bilaabo 2009 2010 saddexda jeer buu igu soo qoray waxay yiraahdeen waa abaar argagixisada America anoo jooga oo Minneapolis jooga oo shacabka Soomaaliyeed la shirahay aniga iyo dad badan oo xildhibaan ahaa Abdisaaq Xuseen Allah naxariiso ku jiro ra'iisul wasaare hore ayay ugu soo qoreen geedkooda dadka ka shaqeeyaan markii ii sheegay horta UN ta magacawda golaha ammaanka magacaaba dadka ka shaqeeyay kulligood waa intelligence waa ciidamo sirdoona oo dawlado shisheeye ah arinta la socdo aabahoodna maad ninkii loo oran jiray waa Matt Braden wuxuu ka shaqeeyaa kala go'a dalka Soomaaliya wuxuu ka shaqeeyaa ummadda Soomaaliyeed inuu cambaareeyo culumo iyo caamaba aboodkaas ah warbixinta waxay siiyaan sidaan ii sheegay golaha ammaanka meesha tan marka waxa loo baahan yahay aniga 2011 habeen barkii ayaa wiil aan dhalay uu akhriyay meediyaha caalamka misaanaada kow ah uu ii soo sheegay London baan joogay markiiba waa fariistay qoraal baan sameeyay gobolka ku jira waa ka arki kartaan lawyer-kayga baan subaxdii u tagay waa dacweeyay ilaa New York baa dacwadii tagtay ilaa banki Mumbai ilaa laysiiyay apology iyo cudaarasho waxaan rabnaa marka waxaad meeshay ka dhigtayso iyo meesha kila style laga qabtaa hadda waxay cambaarayeen ganacsiga Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay in la dacweeyo waxa loo baahan yahay in lawyer la qabto waxa loo baahan yahay inaysan mar dambe lagu soo socdaan qof Soomaaliyeed ay soo xashay waxaan ii sheegayaa dalka yaa iskale yaa ilaahay siiyay dalka Soomaalida ka warrama anigu walaalkay ila dhashay xaaskayga iyo gurigayga iyo maamul markayga waxa walaalkay qof cadow iska daa anoo yar baan waxaan maqli jiray soo waa gacan ma baddoonayaan hees ma baddoonayaan inay dowladda inay dowladda waagaas dadku baa loo yiri xoog dadka Soomaaliyeed baa lahayd dowlad baa lahayd loo soo dhawaaqay hadda waxay ugu arkeen dowladda waxay ugu arkeen qaybsanaanta shirka wasuu sheegayay waxa bacsan annaga abiinay waxa loo baahan yahay inaynu iska deeyno kala qaybsanaanta iyo calaamada tirada badan iyo madaxweynayaasha ciidda ka badan iyo waaqay iyo kale tahay iyo annagu siisano inaynu mid noqonaa loo baahan yahay midnimo wax ku keen karaa wax kale oo meesha ka socon karaa ma jiraan ilaahay baa ugu amraya wa'tasimu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu ba ilaahi ummada haday bilowdo
ومن نمقى طورنك كان كرامته وما دمكي يدو استيرسته ويدو رهير سقيسه ويدو على مكان صورته ويدو أجنبي كلام ينقصه شيء مركا كلام ينقص ساسا نقول عايز وحفر عنه وجرا مثلا مونيتورنج جروب dadka ugu daran waa la isqaybiyay waxa la yiri qaar faaha gudaha la geliyay oo qaar dadka Soomaaliyeed hal la dushay dad masaakiin oo Nairobi joogay ka yeeraan waxay sheegayaan hadda kama jirto oo qada ka bixiyaan beeraan hebel iga war sikriye ka war maxaan ka sheegaa waxaad ku tiraahdaa waa tuug waxaad tiraahdaa waa qayb wada waxaad tiraahdaa hadaal ku rooyay lacag waxa lacagaha ay soo qoraan oo dawladda ku eedeeyaan lacagta ajnabigu qaato shilin laga soo gaaraan إذا ماذا يلا بختيان وقتين أيها كنا وحنا بس أيها قاتل ما عنده ديار بسرعة ديار دي هو وينها هواي ديار دي أنت لا دايما نورها لسان ما يقدر ما يسال لسان صدق يلا لو كنت ديار واحد هل قال صار قال كسر رزق هل قف وعدان قف كل هذا صوف قرآن وإلى يوم وأنا حتى رسول عقل صوت أخوه وكا وهو يبي واحد زيارة المقال وكرية أفترض $50 وهل قف وحرنا الله عليه واحد يليس مع كابي دونه حتى ينمدونه من ماذا نصنع مونيتورنج جروب وحنا نجمع شيء أفر يلا تنسى على السفير هذا اللي يساري كذي وطنك أما ضدك أجنبي مركي وحية ما لسه ما تصورنا العالم أفر يلا تسعة كذا بحال بيجي وطنك هذا نحدد دول وافرنت أفرق بينهم ماشي نظام بكسبها أي ربورة وضع كورن بالموين تولوين ماشي نظام بكسبها واحد نظام بكابرة مركا لمن كاس وحاسة متحمري أنا كل إياها كعد كاذي إن عدودار السيام مركا ممري طريقي لومري شري وحن ربا كان عسترا وحكش شيئا شركار الله يرى أنا قال ماشي الله يقن شروفته أنا قال ماشي الله يحره هل كاس بين متحرينا دب دمنا وحنا وقري مهيان هدي الله يدمه وحنا ربنا دولة الصومالية وحنا يدا مسؤول كأ إنه يشغل قبضته إنه الباب هذا كفر ما إنه يسول ويسد ما وحلو بهاي الشعب الصومالي يقول وكيله لا يعرف الأمان وحلو بهاي دولة الشغل هذا قبضته هو أي من كاس عيرسو ويو أنت يلا تنتهي ترى هذا بابي يعني من كان إرتري الجرمال الأولى بتقاني markaan ciidanka cadawga xabar qabsan iska dhicnay yaa la yiri seel loo wiilin kara Soomaali oo wiilisay aan ku daro anu dadka Eritrea joogay baa oo madaxweynaha halka madaxweynaha ka noqday linkii waxa yeelaysaa nimankaani been wax la cayriyada u gaabisa si nidaamsan baan la dirinaynaa dhinaca dawladana waa in laga diriraa ganacsataduna waa in loo yar baan u qabanaynaa labada dawlad baan ugu dhufanayaa سنة كان هذا الصعود دماتيسة لحد برضو مرة ريبوت بحياة وإن كان بين الوقعة لجرب بعضية عند أبو طي أو أخبار أمان كواحد وشيء سكورة كويسة ومدة الصومالي واحد شيء كل يسيال بقول يكوي سياسة كمان الدول بقول إلا ما باش عالم كان كويس ورباش عالم واحد يجي يسكت كم وقت نبيع مشان يلا تنسى السوق قال له يقول الله دي باش عالم تبعد وطاي ما سوق قال نول بارا جنب كارو كاري بتبعتهم كتنظرنايا وهدي عيدا بدل أتسبيس إرسالات بيتوب سليسة بتبع عيدا تنظرنايا بتبع حوالات تنظرنايا بتبع ذهب من الكور قبل تنظرنايا بتبع بترول كعيد من الكور قبل ودلك كبوا حتى تنظرنايا وحليين بداية هاي وحوي هنا دولة لغتها هنا تحوك اللوغية تارو المنعين تغي وحوي هداي مسيدا كسحنو سيدا البريستيكا بقول له 3 مليون بيعاية بس عباك على هذا وما كان يكون حال أمريكا بقول له 3 مليون بيعاية ما أنت هل مليون كميته حريق حريسين ربنا رواه المصارع ربنا هو نقطة والله بالله طلع أساسا بقول سنة أمريكا هي واحد على الجلد كذا كل واحد ليه شيء والقبيلة لنا شيء سبب يكون عالم كتاب نجا هذا بيدرس سوتها دول كان يد حياة جديد أيضا يمكسود وما زلت